Protestant saddexda qaybood waxyaabaha iskaga dhow yihiin waxa kamid ay qabaan al-khalaas al-khati'atu wal-khalaas waaragti guud ahaan ay qabaan oo macnaheeduna uu yahay nabi aadam calayhi salaam markii uu geedkii jannada ka cunay ee gafka uu galay bay yiraahdeen waxyaabaha u qoran weey ayaa ilaahay inankiisoo ciise ahi soo degay bani aadamku gafka ay galeen si looga dhaafo naftiisa ku furtay dadkii oo waa la dilay ciise iyadoo sidaa loo dhisay waa aragtida cross halka ka soo jeeda marka ciise naftiisii uu ilaahay ku furtay ayuu ku furtay dadka ina ilaahay wuxuu u soo degay inuu dadka si dambiga looga dhaafo naftiisa ku furtay sidaas lagu dilay marka dadku waa inay wada rumeeyaan ay uga mahadnaqaan waa mid waxay yiraahdaan al-khati'atu wal-khalaas gafkay dadku galeen iyo sidii looga saamixi lahaa waxa macruuf ay qabaan at-tathliith waxa la yiraahdo baalkan crosska la yiraahdo ama macatabka iska talaabta isaguna dilka waa ka turjumaya waxa kale oo markaa tathliithkaasi uu sheegaya sidan aayadda ilaahay uu ku sheegayo laqad kafara alladheena qaaluu inna allaha thalithu thalatha way gaaloobeen buu ilaahay kuwa yidhi ilaahay saddex buu saddexeeyaa marka saliibka intii hore ahayd tanina waa tathliithka tathliithku macnaheedu waxa weeye saddex ilaahay inay jiraan isku midna yihiin al-abu wal-ibnu wal-ruuhu al-qudus bay ku leeyihiin aabbo iyo inan iyo ruuxul qudus mid la yiraahdo intaa way isku waafaqsan in saddexdaasi ay ilaah kaliya yihiin watan aayadaba ilaahay uu ku xusay uu leeyahay way gaaloobeen kuwa caynka yidhi laakiin waxa ay isku khilaafaan saddexdaas oo ay u yaqaanaan al-aqanimu thalatha waaxaha ilaahnimadu saddexda waaxood ay ka koobantay saddexda dhardhaar maxay kala yihiin taasaa sharxeedu ku adkaaday ma hawaayiba ma caradiba ma sifa ma daata ma wax la taaban karaya mise waxaan la taaban karayn miyay isku midaysayn mise waa kala munfasil sharxeedii uu dheeraaday ilaa ay mararka qaarkood dagaalo adag ku dhex mareen oo dad baa aad u badan ba ay iska dileen oo lala yaabo qaarkoodna waxay ku tageen markay baybalkooda ka waramayaan aakhiro un baa la ogaan doona xaqiiqada saddexdaa mid waliba waaxood gaarkiisa wuxuu u yahay imika ma fahmi karne aakhira la garan doonaa laqad kafara alladheena qaaluu inna allaha thalithu thalatha waxa caqiidadooda kamid ah oo saddexaad shayga loo yaqaano at-tawassut wa at-tashriic tawasudku waxa weeye in ilaahay iyo dadka caadiga wadaadada u dhaxeeyaan oonay dadku ilaahay si toos ah ula xidhiidhi karin haddii kitaabka la fasirayo muqaddaska waxa la fasirayaa wadaadada fasiraya haddii ilaahay la baryayo iyaga u baryaya waa inaan ilaahay si toos ah loola xidhiidho tawasud baa jiraya tawasud in ilaahay loo dhaxeeyo iyo dadka way sii socotay markaasoo waxay gaadheen inay haddana yidhaahdaan dadka wax akhriyi kare wax baran kare turjumi kara waa annaga un waana sababtii keentay reer galbeedku inay diinta kiristanka tuuraan ay nacaan markay yidhaahdeen nimankan yidhi annagunbaa wax idiin sheegaynana dhegaysta aqoon kale ma jirtee nimankii kaniisadoodii iyo kitaabkooda baan isla tuurno tawasudkaasi wuxuu keenay inay yidhaahdaan qofkii dembi galooba noo kaalay annagaa jarayna maa yusamaa bisukuuki lqufraan juwanada dembi dhaafka dhakhtarka juwan baa loo goostaa juwankaasoo kale wadaadka loo goosanayaa dabeetana kolba intaad ku qorto lacag ayuu dembi dhaafkaagu noqonaya waxaa la yidhaha sukuuk lqufraan juwanada dembi dhaafka arrintaasi waxay sii dhaxashay haddana waxaa la yidhaha tashriica inay sharci dejiyaan waa ka aayaadka in badan aynu ka dhegaysanayna iyagoo kitaabkoodii masaxayo mid kala qoraya gacmahooda ku qoraya waa tashriica اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
wadaadadoodii waxay ka dhigteen iyo suufiyadoodii ilaahyo la caabudo asxaabigii markii dambe islaameen la odhan jiray Cadi ibnu Xaatim Adaa'i carabtii kristanka noqotay buu ka mid ahaa wuu soo islaamoo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam aayaddaa macnaheedu weydiiyey marka wuxuu uhi de anigaa nimankan soo marae wadaadada ilaahayaa lagama dhigan jirine ilaahay unbay ku xidhiidhin jireen dadka macnaha aayaddu waa maxay marka rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam miyaanay dadka waxna ka xaaraantinimeyn jirin waxna u xalaalayn jirin fadalika cibaadatuhum iyaahu cibaadada la caabudaya wataa sharci bay u sameynayaan aan kan ilaahay ahayn iyagaa sharci dejinahaa soo sharci dejin maad maqal sharci dejin iyo xalaalayn iyo xaaraantinimeyn bay samayn jireenoo cibaadada la caabudayba waa inta ilaa xaqi ilaahay bay qaateene التوسط والتشريع ayaa la idhaha arrintaas iyadana caan ku yihiin oo macruuf ahayd midka afraadna waxa weeye al-iibaanu bilkitaab المقدس in la rumeeyo kitaabka muqadaska ah oo lix waaxood ka kooban bay idhahay mid waxa weeye alcahd الqadiim oo ay uga jeedaan towraad midna waxa weeye alcahd الjadiid oo ay uga jeedaan injiil injiishii bay sii kala qaadeen oo waxay idhahdeen afar nin injiisha ka soo aroortun baa la qaadanaya injiilu luuqa marqas iyo mata afar noocaas bay idhahdeen afartaasuba injiishooda la qaadanaya marka afartaa iyo labada hore lixdaas weeyaan kitaabka muqadaska ah waxa si cajiiba waxay ku leeyihiin kitaabka muqadaskii lixdiisa qayboodba waxaanu qiraynaa hadalkii ciise inaanu ahayn oo iyagu daa u qabaan inuu yahay ilaahay ama saddex kii saddexaynayay waayo luqadiisu suryaani ba ahayd kana wuxuu ku qoran yahay luqadii greeg taa way isla qireen oo ilaahooda hadalkiisii dee mabaaha bay idhaaheen waxaa kale ay qireen kii rasuulka ahaa ee ilaahooda ka sokeeyey inuu mubham yahay oon isagana la garanayn taasina waa musallab agtooda waxa saddexaad oo ay qirayaan in been badani ku jirto kalaark ninka la yidhaahdo ilaa kitaabka muqadaska aada u sharxay waxa uu leeyahay waxaa ku jira 40,000 oo beenood waa wadaadkii sharxayay 40,000 oo beenood markay uu xambaarsan yahay kitaabkii muqadaska ahaa ay ku sheegeen maxaa soo hadhayba de waa wada been waxaynu uga jeednaa marka dadka afartaa arrimood aaminay waxaa halkaa ka muuqatay iskuma waafaqsana ilaahooda iyo rasuulkooda iyo kitaabkooda iyo diintooda midna intaa midna meel loogu hagaagana male mana isku waafaqsanaa halka muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin kitaabkooda qur-aanka ah rasuulkooda maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ilaaha xaqa ah ee la caabudaya ee kitaabkana usoo dhiibay rasuulkana soo diray iyo qiblada loo tukanayay muslimka markuu tacriifinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa man sallaa salaatana واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم قفك صلاة يدا تكنية إلهي عابده سبحانه وتعالى قبلة يدنا وتكنية تكفيري أنا هين دتك جالسين يا وحن جورعنا عناية مسلم كاسالة إلى ما جنتي إلهي كتير أبو النبي عليه الصلاة والسلام ملو وين بلغت سيدوني مايه قلادات بدني ويس كتير يا نقار بدنه كبائر الدنبية وين كل عيات شريه tilmaanta muslimka intaas uu ka dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba aad uga xumaadaan marka waxa kamid ah oo yiraahdaan ummaddu inta ku midaysan muslim qiblada quraanka rasuulka kama adkaan doono idan marka saddexda waa in qalbigooda lagu burburiyaa oo qalbigooda lagu jeexjeexaa saddexdaas ay ugu kala tagaan marka waxaynu halkaa ka fahmaynaa ama aynu garan karaynaa dee labada qolana caynkaati arrinkoodu urursan yahay ilaahoodii ku midaysta rasuulkoodii ku midaysta qur-aankoodii qibladoodii iyo nimanka maraya kitaabkii 40,000 oo beenood baa ku jira ilaahiina waa la fasiri doonaa waaxihiisa aakhirun baa la garan doonaa inta waaxoodu ka kooban rasuulkii ka soo qaadayna maba la garanayo oo waa mubham bal sida loo saaxiibsiinayo tawfiiq looga sameeyo casrigan niman badan oo muslim sheeganaya ayaa ordaye bal halka ay ka saaxiibsiinayaan iyo halka iska waafajinayaan de waa wax fashilan oo cad weeye
marka aayaddu laba jeer baa ilaahay uu laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waa qayb waxay leeyihiin ilaahay baa ciise bnu maryam haddana aayadda ka dambaysa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaث labada qowlba way qabaan oo qaybtan orthodoxka la yidhaahdo lebnan serbiya ruushka ee qaybta bariga u badan qaybta aaminsan kristanka in xoog wax lagu hirgeliyo qaybtaasibaa ayaa had iyo jeer u badan haaliu halaaث aan ahayna u badan inuu ciise yahay ilaahay inta kalena si uun ay uhoos imanayaanoo isagu ka weyn u yahay qaybta sidaa aaminsan cumuuman waxaynu markaa usoo qaadanay mawduucan si aynu u garanno nicmada ilaahay una siiye subxaana wa tacaala iyo fadliga aynu dheernahay cid walba iyo ilaahay xaqa ina fahamsiiyey inaynu ugu mahadnaqno kuna adkaano kuna dadaalno dadkana ku badbaadino iyagaa laftigooda haraadan oo xiiqsan caamilatun naasiba buu lahay waa dad camal falaya oo haddana daalaya marka inaynu ku badbaadinaabaa loo baahan yahay dadka diinta xaqa loogu baaqo wixii baadilana lagu baraarujiyo wahada ma aqulu واستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان